Halkani waa kanaalka Eglon Kidmed. Maantay waxaynu ku hadlaynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu hadli doonno maxkamiyadda Talyaaniga. Fadlan haddii aad YouTube-ka ku cusub tahay subscribe saar, muuqaalkana like saar si aan u soo badino muuqaalada caynkan oo kale ah. Go'aankii guddi hoosaadka ka soo saareen wadamada Liibiya, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa la hordhigay kalfadhigii afaraad ee golaha loo dhan yahay ee dhacay 21 November 1949 waxaana la ansixiyay iyadoo waxba laga bedelin kaasi oo ah sida tan: Liibiya waxaa la siiyay xornimo, sidaasna waxaa ogolaaday 40 dal, cidna diidin, waxaase ka aamusay 10 dowladood. Soomaaliya waxaa laga dhigay maxkamiyad Talyaani maamulo muddo 10 sano ah, waxaa ogolaaday 40 dal, waxaa diiday 7 dal, waxaa ka aamusay 3 dal oo kala ah Liberia, New Zealand iyo Sweden. Ergadii Israel ee hiilka ka sugaysay wadamada muslimka ah ee Carabta hormuudka u tahay wax hiil ah kama aysan helin, wayna dayaceen. 7 wadan ee diiday in Talyaanigu dib u xukumo Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dalka Itoobiya, Yugoslavia iyo Midowgii Sofiyeeti. Eritrea waxaa la isku raacin arrinta Eritrea dib loo dhigo ilaa shirka dambe ee GUM ergana loo diro, sidaasna waxaa ogolaaday 37 dal, waxaa diiday 5 dal, waxaa ka aamusay 6 dal. Ku dhawaaqidii go'aanka ka hor, GUM waxay wadamada Soomaaliya, Liibiya iyo Eritrea ka marti qaaday wakiilo ka socday xisbiyadii iyo ururadii wadamadaas ka jiray oo intoodu badan diidnaa soo noqoshada Talyaaniga. Waxaase Soomaaliya ka jiray biiraqaatiyaal taabacsan maxkamiyadda Talyaani oo ku midaysan dalladii la odhan jiray La Conferenza. Hogaamiyihii ergadii Israel Mudane Cabdullaahi Ciise ayaa si cad gaashaanka ugu dhuftay go'aankaas, wuxuuna shirka ka hor cadeeyay in Soomaalidu geeri ka higaan maamul Talyaani oo dib loogu dhiibo Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in Mudane Cabdullaahi Ciise uu 21 Abriil 1949 guddiga u jeediyay mowqifka siyaasadeed ee inta badan Soomaalidu isku raacsan tahay meel kastoo ha joogtee, kaas oo ah inaysan marnaba ogolaanaynin soo noqoshada iyo maxkamiyadda Talyaani midna. Wuxuuna yidhi heshiiskaas nabadda ee wadamada xulafada Talyaanigu la gaartay macnihiisu wuxuu u muuqdaa furane uu yahay xorriyad qaadashada. Wuxuuna kaloo yidhi haddii heshiiskaas wax macne ah leeyahay, waxa weeye oo caddaatay inaan Talyaanigu ku habboonayn maamulida wadamada uu horay u gumaysan jiray. Fikradda aan idin soo hordhigayna Soomaalidu waxay u aragtaa mid xaq ah oo dhexdhexaad ah. Waxaa kaloo soo shacbahay heshiis nabadeedkii xulafadii Talyaaniga la meel dhigtay inuu suurtagelinayay in Talyaanigu dib u xukumo dalalkii uu hore u gumaysan jiray iyadoo lagu maqaar saaray maxkamiyadda GUM. Cabdullaahi isagoo hadalkiisa sii wata wuu yidhi shacabka Soomaaliyeed uma arkaan wax farqi ah u dhaxeeya maxkamiyadda Talyaaniga iyo xukunkii gumaysiga ee hore. Dhibaatooyinka u badan maxkamiyadda Talyaani oo Soomaaliya la gelaya gebi ahaanba ka soo horjeeda rabitaanka shacabka. Khudbadii Cabdullaahi Ciise oo ahayd mid aad u dheer kadib ayaa safiirka dalka Liberia u fadhiyay GUM weydiiyay su'aalaan: qaabkee ayaa ururka Israel ugu hortagayaa maxkamiyadda Talyaani? Jawaabtii Cabdullaahi waxay Soomaalidu geeri ayay ka higaan soo noqoshada Talyaaniga, inkastoo aynan hubeysan haddana wuxuuna iska caabin Talyaaniga. Sidoo kale ayaa safiirkii Shiinaha Taiwan u fadhiyay GUM ayaa isna Cabdullaahi su'aalay: Israel ma fahamsan tahay maxkamiyad kasta oo la geliyo Soomaaliya in GUM ay dusha ka ilaalin doonto? Cabdullaahi ayaa ku jawaabay in Israel ka soo horjeedo maxkamiyadda Talyaani xataa hadday GUM ka ilaalinayso. Wuxuuna hadalkiisa ku soo afjaray hadal taariikhi ah oo aad iyo aad u qiimo badan, aadna u culus, balse GUM aysan tixgelin. Waxaana qabaa in aysan sidaa yeelin haddii ay ogaan lahaayeen in murtidaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto mustaqbalka iyo aayaha Soomaaliya. Waxaan meeshaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii oo aan ugu hadlaynay maxkamiyadda Talyaaniga.